wax ka dhigan 13 sano oo ay jirtay jaamacadda Togdheer waa mid hadba heer taagnayd iyadoo la joogteeyay isbedelada dhinaca togan loo qaaday ee lagu tayeynayo nidaamka waxbarasho ee jaamacaddu bixiso iyo imkaaniyaadka farsamo ee loo adeegsado waxbarista bulshada waxaana lagu guuleystay hirgelinta manhaj waxbarasho oo la jaan qaadaya midka jaamacadaha dunida si loo tayeeyo aqoonta ardaygana waxa la keenay agab casri ah iyo barayaal xirfad sare leh inta markii meel lagu tiiriyayna waxa jirta tu kale oo hareer socotay taasoo ah xiriirka jaamacaddu la yeelanayso jaamacadaha dhigeeda ee dunida sidii talanka iyo tashigu ahaa waxa talaabooyin muhiim ah loo qaaday dhinaca togan gulahaasi dhinaca xiriirka caalamiga ah ee jaamacaddu la yeelatay dhigeeda dunida kale oo wax weyn ku soo kordhiyay adeeg bixinta waxbarasho ee jaamacadda iyo waxbarista bulshada aan idin kala hormeeyay waxa hoggaanka u haya inay jaamacaddu markii ugu horeysay ku guuleysatay inay hesho liisanka caalamiga ah ay xubin buuxda kaga noqonayso ururka ay ku midaysan yihiin jaamacadaha dunidu iyo sidoo kale iskaashi ballaaran oo dhex maray labada jaamacadood ee Togdheer University iyo Rabbaniyin International University kaasoo ay si wada jir qalinka ugu duugeen mishiinka hawshani waday gudoomiyaha jaamacadda Togdheer Sheekh Cabdibaasid Cabdinuur Xaaji Siciid oo had iyo habeen hawshani heegan ugu jiray iyo Sheekh Dr. Ahmed Ciise Al-Micsarawi oo kamid ah culimada waaweyn ee caalamka Islaamka kana mid ah madaxda sare ee jaamacadda Rabbaniyin heshiiskan oo ah mid fursado qiimo badan u horseedi doona guud ahaan ardayda dalka gaar ahaan ardayda jaamacadda Togdheer isla markaana door weyn ka geysan doona horumarka dhanka waxbarashada iyo fursadaha waaweyn ee ay heli doonaan ardayda ka baxda jaamacadda Togdheer talaabada saddexaad ee xigtaana waxay noqotay in hoggaanka sare ee jaamacadda Togdheer oo martiqaad rasmi ah ka helaya madaxweynaha jaamacadda Haramaya ee dalka Itoobiya Dr. Jamal Yusuf Hassan ay si rasmi ah qalinka ugu duugaan heshiis dhexmara labada jaamacadood oo salka ku haya iskaashi la xiriira waxbarashada sare cilmi baarista tababarada isdhaafsiga barayaasha iyo ardayda hawle halka kumay hakane hora loo socday iyadoo higsigu yahay in hal loo hirgeliyo hawlaha ka dhalanaya halka loo socdo waxaanay mar kale jaamacadda Togdheer heshiis iyo iskaashi waxbarasho la saxeexatay jaamacadaha IBIU iyo BKI ee dalka Ingiriiska ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ee jaamacadda Togdheer iyana waa door muuqda oo kale oo ay jaamacaddu kaga qayb qaadanayso arrimaha samafalka iyadoo barnaamijyo qorsheysan oo isugu jira tababaro wacyigelin bulsho iyo adeeg bixin caafimaad oo bilaash ah ka fulisa qaar ka mid ah goobaha ay ku nool yihiin bulshada danyarta ah iyo kaamamka barakacayaasha ee gobolka Togdheer jaamacaddu waxay sidoo kale bilowday tababaro kor loogu qaadayo aqoonta xirfadeed ee shaqaalaha qaar ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo hay'adaha dawliga ah waxaanay wax ka bedel iyo casriyeyn ku sameysay imkaaniyaadka farsamo ee loogu talagalay in wax lagu baro ardayga gaar ahaan kulliyadda caafimaadka iyo ICT-ga hal abuurka iyo hirgelinta barnaamijka e-learning oo ah isticmaalka tiknoolajiyadda elektarooniga ah iyo warbaahinta digitalka ah ayaa lagu guuleystay si kor loogu qaado koorsooyinka iyo tababarada iyadoona ardayda caafimaadka ka barata jaamacadda sanad kasta loo qaado magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil si loo dhiso aqoonta practicalka ah isla markaana casharro dheeraad ah loogu siiyo xarunta guud ee shaybaadhka qaranka Kamal Xaaji Cabdiraxmaan iyo Cabdirasaaq Baradho wararka telefishinka Horyaal magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer